Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada channelkeena BMA Production. Muuqaalkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa YouTuberska aan daawado muuqaaladooda, iyadoo jira YouTubers aad u badan aan daawado muuqaaladooda. Waxaan ka soo xigtay 3 YouTubers kuwaas oo muuqaaladooda aan marnaba ka caajisayn. Dhammaan YouTuberska oo dhan kama caajiso muuqaaladooda, laakiin 3dan ayaan ka soo xigtay, adinkana igala faa'iideysta waxtarkooda. YouTuberska kuwaad ama channelka kuwaad waa idaacadda Bulxubey ama Radio Bulxubey. Saan filayo waa wada taqaanaan, maadaama ay ku xiran yihiin 134,000 oo hadda usii dhow yahay 135,000 oo qofood. Dhammaantiin inaad ku wada xiran tihiin ayaan u maleynayaa. Channelkan waa channel aan caadi ahayn, barnaamijyada qaabka u soo tabinayo aad iyo aad ayaan ula dhacay. Marka waa kana channelkan waa channel aan caadi ahayn. Muuqaalada haddii daawato ma aragtay marnaba niidaada kuma soo dhacaysa inaa xoogaa caajis iyo wax dhanba dareemaysid. Barnaamijyada aan aad ula dhacay waxaa ka mid ah markuu soo tabinayo barnaamijkan qisooyinka ambiyada. Cajiib, qisooyinka ambiyada oo haddana aan waqti dheer qaadanin oo gagaaban. Ma aragtay waa kana qisooyinka ambiyada, qaybo badan waaye. Ambiyada dhammaan inuu soo wada maraa jeclahay, qaybo badan waaye. waa barnaamijkii aan aad ula dhacay qaabka u soo tabinayo iyo cajiib, wallaahi bil aad ayaan ula dhacay. Marka muuqaalo kale ayaa ku jiro oo cajiib ah oo adiga ma aragtay waxaa ku jiro xataa wuxuu soo dhigay hadda ka hor aan arkay sida gaariga loo wado. Cajiib, waxaa ku baranaysaa muuqaalkaas aad daawanaysaa sida gaariga loo wado, isla markiiba ma aragtay waa fahmaysaa. Masha Allah. YouTuberska labaad waa saxanka xogaha. Masha Allah, cajiib. Horta YouTuberskan yarkan waa yar Soomaaliyeed. Masha Allah, barnaamijyadiisa aan ma aragtay caadi ma wallah. Barnaamijyadiisa haddii aad daawato ma aragtay xogag badan horta waa waa ka faa'iideysa, waxyaalo badan ayaa kugu kordhaya cilmi hadday ahaato. Horta aniga aad ayaan ugu xiranahay channelka. Masha Allah, heer waxaan rabay inaan muuqaaladiisa dhammaan inaan dhammaysto, laakiin muuqaalada aad ayay u badan yihiin. laakiin macaan darteed markaad daawanaysid muuqaaladiisa marnaba niideeda ma ku soo dhacaysa caajis iyo wax lamid ah. Cod macaan uu leeyahay. Masha Allah. haddana barnaamijyada sida usoo tabinayo iyo ma aragtay xirfadda uu leeyahay. Masha Allah, baarakallah. walaalkay masha Allah, aad khayr Allah siiyo. barnaamijyadiisa marka waxaa ka mid ah barnaamijyada aan ugu jeclahay aan wax badan ka faa'iido. waxaa ka mid ah markuu ka hadlayo maasuuniyadda. Masha Allah, iyo dhagartay dadka muslimiinta u maleegaan. haddoo kale ma aragtay Adidas oo kale magacaas secret waaye. waa waxay ka soo shaqeeyeen ma aragtay maasuuniyadda. sidoo kale yuhuudda dhagartooda iyo ma aragtay barnaamijyada kale sida masiixi tijaal oo kale waqtiga soo bixi doono. barnaamijyada noocaas oo kale ayaa ka buuxo. marka isma dhibaysid ma aragtay barnaamijyada nooca aragtay haddii aragto muuqaalka aragtay haddii areedis ma aragtay waxaa imaanaysaa isma dhibaysid. muuqaalada aad ay u badan yihiin. marka waxaa imaanaysaa playlist ayaa imaanaysaa. playlist marka mid muuqaalada dhan inta isleh ayuu meel iskugu geeyey, kadib magacyo ayuu ku qoray. waa kuwaana marka magacyo ayuu ku qoray. inta muuqaalada isleh magacyo ayuu ku qoray. marka hadda intoo kale dhiirigelin waa muuqaalo ku saabsan dhiirigelin waa 13 muuqaalo. muuqaalo ku saabsan Soomaalida waa 6 muuqaal oo kale. cayayaanada 3 muuqaal waaye. siyaasadda oo kale Masha Allah waa daawada horta badanaa muuqaalka ku saabsan siyaasadda. waxaan aad ugu helaa ma aragtay yuhuudda oo kale, muuqaalada oo kaga hadlaya yuhuudda. Masha Allah. iyo waa kana maasuuniyadda, barnaamijka maasuuniyadda waa kana dhagartooda iyo balaayadooda ilaahay naga qabtay. muuqaalku ka hadlayo wax badan ayaa faa'iidi doontaa ma aragtay haddii aad daawato. qaladaad badan aad samayn jirtayna waa ka leexan doontaa haddii aad daawato ma aragtay muuqaalada. waxaa jira ficilooyin oo ma aragtay adiga xataa mararka qaar aad samayso. kadib markaa muuqaalka aad daawato kadib waxaad ogaanaysaa in ficilkaas ay ka imaaday dhankan yuhuudda iyo dhagartooda. iyo marka haddii aad daawato ma aragtay muuqaaladan wallaahi bile wax badan waa ka faa'iideysaa oo khibrad iyo haddii aad aqoon diineed waxyaalo badan ayaad ka faa'iideysaa. channelka saddexaad ama YouTuberska saddexaad waa Photography Pro. kan channelkan waxaa ugu soo qaatay 3 channel ee aan ma aragtay runtii waan ka helaa muuqaaladiisa ma aragtay barnaamijyada iyo qaabka uu soo tabinayo. inkastoo yahay qof ma aragtay gaal ah gaalkana waxaa laga faa'iideysan karaa cilmiga uu hayo.
marka aniga barnaamijkan maaragt barnaamijyadiisa waxay ku saabsan tahay kaamerooyinka yacni photographiga iyo qaladaadka oo qofka sameynayo marka uu sawiraanta qaadayo kale hadda Soomaalideena wayba ku badan tahayba qaabka yacni sawiraanta loo qaado way jiraan dad badan oo yacni camera haysto oo raba inay noqdaan photography yacni ka qaldan inay qaabkay sawirka u qaadi lahaayaan picture-ka oo kale ISO-ga oo kale inay saxaan iyo waxyaalo badan iyo shutter speed-ka iyo waxyaalahaas oo kale ayaa ka qaldamaya marka ninkan photography pro wuxuu ka saxayaa barnaamijyada noocaas oo kale maaragtay inkastoo uu yahay qof gaal oo maaragtay haddana yacni cilmiga waad ka faa'iidaysanaysaa dad badan oo Soomaali jiro runtii waa inay ka faa'iidaystaan cilmiga noocan oo kale haddii aad rabto inaad noqoto photography maaragtay aniga hadda waan ka faa'iidaystaa oo anoon camera haysan ayaan daawadaa muuqaaladiisa si hadhow maaragtay ay igu noqoto xirfad dheeri ah marka setting iyo maaragtay waxyaalo badan set up ayuu leeyahay waxyaalo badan noocaas oo kale ayaa maaragtay ka faa'iidaysa channelkan kuwaasi waxay ahaayeen channelada aan aad ugu xiranahay muuqaaladooda aan daawado wax badanna aan ka faa'iidaysto marka haddaba channelkayga ayaa haray marka PMA Production muxuu yacni soo gudbiyaa muxuu soo tabiyaa PMA Production wuxuu soo tabiyaa arrimaha barnaamijyada teknolojiyada multimediaha iyo waxyaalo noocaas oo kale oo ku saabsan teknolojiyada haddaba haddii aad rabto inaad ka faa'iidaysato waxyaalaha noocaas oo kale fadlan subscribe dheh gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee soo gaara muuqaaladeena waxaan idin leeyahay asxaabay maca asalaama